xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in la qaban doono xuska 18 May oo sanad kasta hal mar laga xuso guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Maxamed Cali Bile agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland oo si gaar ah ugu waramayay muqbahayaha Som News TV ayaa sheegay in la qaban doono xuskaasi balse si ka duwan qaababkii hore ee loo qaban jiray loo qaban doono. doorta waa la ciidaya 18 May si wanaagsanna waa loo ciidaya isku soo ururkii un baa la yareynaya dabaaldeg uu jira dabaaldeg waxa jira media dabaaldeg waxa jira siyaalo kale oo shirara dabaaldeg waxa jira dadku isu imanayo xaflad qabsanayo laakiin sidii hore ee maaragtay inta ciidan la isu keenay ay hoostiis kaga jir lahaayeen ay lugeyn lahaayeen ay maalmo badan tababarka wadi lahaay tiiba la yareynay si xanuunkani faafistiisu ay nooga yaraato marka ciidamadii iyo dadkii soo bandhigi jiray awood ay Soomaaliland leedahay wadadii ma marayaan wada lama marayo laakiin siyaalo kale ortay in dabaaldegno ma meesha muhiima dabaaldeg uu jira laakiin in dad isku soo ururo oo madaxa la isgeliyo ayuun baa la yareeyay laakiin dabaaldegu guud ahaan uu jira maantana waad aragtay media sidoo yahay waa digital world baa la galay marka worldka digitalka ah ayeen siyaalo badan idinkaana hogaamiye ka noqonaya dabaaldeg agaasimahu hadalkiisa si wata ayaa dhammaanba shucuubta islaamka gaar ahaan reer Soomaaliland ugu hambaliyay curashada ciidul fitriga dareenkaygu aad buu fiican yahay 3 maalmood Ramadaan soo dhaafnay maanta way naga cunayna abaartii baan soo dhaafnay dareenkaygu faraxsan yahay waxaan ku faraxsanahay dadka faraxsan kol haduu dadkooda faraxsan yahay waxaan leeyahay dadku ha ciido waxa kale oo leeyahay dad ciida maanta kareen baa jira waa ma u baahan taageero ama u baahan duco inta baan la dadaalo in yeelo bulshada maxaad ugu baaqaysaa xusaskii 18 May baan ugu soo 26 June baan ugu soo dhow ciidii baan ku jirnaa bulshada baaqo dirsan doorta dabaaldeg badan baad sheegtay ciidii baad sheegtay oo 18 May baad sheegtay oo 26 June baad sheegtay oo roobkiyo da'ayaad sheegtay Ilaahay ku mahadnaqaan leh oo Ilaahay loogu mahadnaqo nimcadayn haysano horta marka hore la garto wax badan way naga dhimayeen way doonaynaa laakiin si aad u garato horta waxaad doonayso horta waxaad haysatay laftigeedana garowso marka bulshada waxaan leeyahay wanaag halka laga sii wado ugu dambeyntii waxa xusud badan in xuska 18 May oo sanad kasta hal mar la xusaa uu yahay xus ku weyn guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland kuwaasi oo hadalhayn badan uu ka dhalatay maruu madaxweynuhu sheegay in xuska 18 May qarashaadkii la gelin doono meelo kale oo ku aadan horumarinta kaabayaasha dhaqaale inkastoo aan si rasmi ah madaxweynuhu sheegay in la joojin doono xuskaasi waqadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Badri Muxyidiin Xuseen wararka muqbahayaha caalamiga Som News TV Hargeysa.